bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa 25-ka bisha afraad sanadka 2022 qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah maraykanka oo qaaday tallaabo qarxin karta dagaalka saddexaad ee dunida maxay tahay digniinta ka soo yeertay dowladda ruushka waxaa kaloo aan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan wararkii ugu dambeeyey kulanka saddex geesoodka ee lagu taageerayo falastiiniyiinta oo ka dhacay magaalada qaahire ee dalka masar mas-uuliyiinta yeeshay iyo macluumaad ku saabsan wararkii ugu dambeeyey dagaalada dalka Ukraine ee galay maalintoodii 61aad muxuu madaxweyne farmaajo uu ka yiri dib u doorashada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqayn doonaa ku soo dhawo mar kale maracada show ka dhib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsantahay waana kaga mahad celinaya inaad ka mid tahay saaxiibada sida weyn noo dhiirigeliya inta aan ku guda jirno tabinada qaybaha kala duwan ee barnaamijyada aynu ku falanqayno siyaasadda caalamka aad baad u mahadsantahay aynu ku hormarno dowladda ruushka ayaa waxay ka digtay weerar ka dhana dayax gacmeedyada inuu sababi karayo dagaal caalami ah oo saddexaad sida uu sheegay Dmitry Rogozin oo ah madaxa wakaaladda hawada sare ee dowladda ruushka kadib markii uu warbaahinta ula hadlay maalintii Sabtida qorshahan ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay door weyn ay doonayso inay ka ciyaarto kaasi oo sababi karaya dagaal saddexaad oo caalami ah kaas oo guud ahaan dunida gilgilaya waa in maskaxda lagu hayaa in burburinta dayax gacmeedyada shisheeye ay ka dhigan tahay dagaalka saddexaad ee dunida mana jiro wax shaki ah oo ku saabsan arrintan ayuu yidhi Rogozin isagoo isticmaalaya ereyga laatiinka ah ee loo adeegsada sababaha sharci ahaan si rasmi ah loogu bilaabi karayo dagaalada maxaa ruushka ka qiilisiya waqti xaadirkan Mareykanka ayaa wada mashruuca Boeing X-37 oo ah dayuurad aan cidina wadin oo tagi karaysa hawada sare iyada oo hubaysan taasi oo tan iyo sanadkii 2010kii howlaheeda la qarinayay qaybna ka ah mashaariicda wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka sirdoonka ruushka ayaana u muuqanaya inuu helo mashruuca Mareykanka uu damacsan yahay waqti xaadirkan diyaaradan oo hanti muhiim u ah militariga dowladda Mareykanka ayaa marka laga soo tago inay sameyn karto sahan iyo sirdoon waxaa sidoo kale ay qaadi karaysaa hubka nuclearka iyada oo qorsheynaysa inay duulimaadkeedii lixaad ay ku tagta hawada sare walow ruushka uu sheegay in haataanba ay ku jirta hawada sare iyada oo sidoo kale la sheegay diyaaradda kaliya ee marka hawada sare ka soo noqota si caadi ah u degi karaysa ruushka ayaa wuxuu waqti xaadirkan uu ka digayaa in hawada la hubeeyo iyada oo Rogozin uu sheegay in markii arrintaasi iyaga iyo Shiinaha ay Mareykanka ay ula tageen uu ku salaamay dhagal leer u duleelo oo kaliya ruushka laftiisa waxa uu leeyahay diyaaradda MiG-31 Foxhound oo qaadi karaysa gantaalo lagu ridi karaya hawada sare oo lagu burburin karaya dayax gacmeedyada iyadoo 2018kii la arkaya diyaaradan oo ka timid xilligii Soofiyeedka oo ay galbinayso diyaaradda kale ee MiG-29 in hubka wax gumaada la geeyo hawada sare ayaa si caalami ah mamnuuc u ahay tan iyo sanadkii 1967 dhinaca kale Boris Johnson ayaa Master Zelensky u sheegay in gawaari badan oo gaashaamo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka taangiyada loo diri doono gudaha dalka Ukraine waxaana sidaas sheegay afayeen u hadlay aqalka madaxtooyada dowladdaasi Ingiriiska Zelensky ayaa ugu mahad celiyay ra'iisul wasaaraha dowladda Britain sidoo kale inuu qayb ka ah tababarka la siinayo Israa'iil u dhalatay dalka Ukraine kuwaas oo door weyn ka ciyaaraya haddii ay dib ugu soo laabtaan dalkooda dagaalada Ukraine ka soconaya sidaasina waxaa lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladdaasi Ukraine dhinaca kale madaxweynaha dowladdaasi Ukraine Zelensky ayaa Master Johnson uga warbixiyay xaaladda gobolka Donbass halkaas oo ruushka xoog uu saaray dadaaladii ugu dambeysay ee militariga halkaas oo isugu geeyay labada hogaamiye waxa ay dhaleeceeyeen weerarada joogtada ee ciidamada dowladda ruushka ay ku beegsanayaan bartilmaameedyada rayidka oo ay ku jiraan magaalooyinka Mariupol, Odessa iyo magaalada Lviv ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay Master Zelensky in ruushka lagula xisaabtami doono falalkaasi iyo in dowladda Britain ay gacan ay ka geysan doonto ururinta cadeymaha ah dambiyada dagaal ee ruushka uu ka geysanayo gudaha dalkaas waxaa kaloo Johnson uu shaacu ka qaaday inuu soo cusboonaysiin doono cunaqabateennada dowladda UK ee ka dhanka xubnaha militariga ee Ruushka sida warbixinta lagu sheegay labada hogaamiye ayaa waxay ka wada hadleen sidii dowladda Britain ula shaqayn lahayd saaxiibadooda si loo horumariyo xalka amni ee mustaqbalka fog ee dowladda Ukraine iyaga oo ka wada hadlay wada hadallo lala yeelanayo wadamada kale iyo kooxaha kale si looga bixiyo taageero maaliyadeed oo dheeraad ah oo uu ku jira shirkii wasiirada maaliyadda G7 ee dhacay Arbacadii la soo dhaafay marka taasi laga yimaado ruushka uma muuqanayo inuu dhig jalaq u siinayo hadallada kala duwan ee ka imaanaya guud ahaan dalkaasi iyo sidoo kale wadamada ka soo horjeeda duulaanka ruushka ee dalkaasi Ukraine falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaad ka daawanaysaa maracada show markaana aynu eegno
saddexda dowladood ee carbeed ee Jordan, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Waxaa la sheegay inay ka shaqaynayaan sidii loo taageeri lahaa shacabka Falastiiniyiinta, xaalad xasilooni aan loogu soo celin lahaa magaalada ku taalla dhulka Falastiiniyiinta ee bariga magaalada Qudus. kulankan saddex geesoodka ayaa hogaamiyaasha sidoo kale waxaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ku saabsan Falastiiniyiinta. kulankan oo dhacay shalay oo Axad ahayd, boqorka dowladdaasi Jordan, madaxweynaha dowladda Masar iyo sidoo kale dhaxal sugaha boqortooyada Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay kulankan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada Qaahira, sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay maxkamadda dowladda Jordan iyo sidoo kale xafiiska madaxtooyada ee dowladda Masar. isku dhacyada ayaa bulihii ugu dambeeyay waxay ka taagnaayeen masaajidka Al-Aqsa, kuwaasoo u dhexeeya shacabka Falastiiniyiinta ee geesiyaasha ah iyo ciidanka Yahuudda, kuwaasoo gebi ahaanba ka soo horjeeda in la carqaladeeyo goobta ay ku dukanayaan. sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladda Jordan, hogaamiyaasha saddexda dhinac ayaa dadaalkooda ugu badan waxay sheegeen inay isugu geyn doonaan sidii xaalad xasilooni ah loogu soo celin lahaa magaalada Qudus, sidoo kalena loo joojin lahaa dhammaanba dhibaatooyinka ka taagan masaajidka Al-Aqsa. sidoo kale wadamadan carabta hogaamiyaashooda ayaa ugu baaqay Israa'iil inay joojiso dhibaatooyinka ay ciidamadooda ka geysanayaan masaajidka Al-Aqsa, halkaas oo labadii maalmood ee ugu dambeysay si weyn loo baahinayay muuqaalada muujinaya dhibaatooyinka ciidamada Yahuudda ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee halkaasi ku cibaadaysanaya. waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah. dhinaca kalena dalka Yemen haddii aynu eegno, kooxaha Xuutiyiinta ayaa la sheegay shalay inay sii daayeen 14 ruux oo ajaaniib ah, kuwaas oo la sheegay in ay xabsi ay ku hayeen. qaramada midoobayna waxaa la sheegay in ay si weyn kaga walaacsan tahay dib u dhaca ku yimid diyaaradii dhanka rayidka ahaa ee la qorsheynayay inay shalay ka duusho garoon diyaaradeedka magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen. laakiin waxaa lagu warramayaa muwaadiniintan inay ka soo kala jeedaan dhowr dowladood oo kala duwan, waxaana ay gacanta ugu jireen kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalamaya sanadihii ugu dambeeyey. qaarkood waxaa lagu warramayaa inay gacanta ay ku hayeen kooxaha Xuutiyiinta 2 ilaa 3 sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ka dhigan in gacanta ay ku dhigaan Xuutiyiinta markii ay ku soo xoogaysanayeen magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalkaasi Yemen. wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegno, hay-adda sirdoonka ee dowladda Britain ayaa shaaca ka qaadaysa in ilaaminka Ruushka wax horumar uusan ka gaarin dagaalada uu ku qaaday gobolka Donbass ee dhanka bari ee dalka Ukraine. telefishinka CNN ayaa baahinaya madaxweyne Joe Biden si cad inuu u sheegay in ciidamadooda aysan marnaba ka garab dagaalami doonin ciidanka dowladda Ukraine marka la eego xitaa ciidamada cirka, laakiin waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada maaliyadeed ee ay siinayaan ciidamada dowladdaasi Ukraine. hadalka madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa ku soo aadaya xilli Anthony Blinken iyo Lloyd Austin ay gaareen magaalada Kiev iyaga oo ballan qaaday 700 milyan oo dheeraad ah oo lagu caawinayo ciidanka militariga ee dowladdaasi fadhigeedu yahay magaalada Kiev. Faransiiska haddii aynu eegno, sidaan macluumaadkeennii hore ku baahinayba, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa mar kale 5 sano ee soo socota hogaamin doona guud ahaan dalkaasi ilaa 2022 ayuuna hogaamin doonaa dalka Faransiiska maadaama doorashadii dib uu ugu guuleystay. marka taasi laga yimaadana, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa war ka soo saaray doorashadii ka dhacday dalka Faransiiska, wuxuuna hambalyo u diray madaxweynaha dalkaasi dib loo doortay Emmanuel Macron. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin doorashada ka dhacday dalka Faransiiska iyo guusha Emmanuel Macron uu ka gaaray. sidoo kale Farmaajo ayaa waxa uu xusay in Soomaaliya ay la shaqayn doonto madaxweynaha dib loo soo doortay Emmanuel Macron. dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed way ku faraxsan yihiin in madaxweyne Emmanuel Macron dib loo doorto, waxayna u rajeynayaan guul, ayuu qoraalkiisa ku yiri madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. qoraalka madaxweynaha loogu hambaliyay Emmanuel Macron ayaa sidoo kale lagu sheegay in wadamada Faransiiska iyo Soomaaliya ka dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan, sidoo kalena iskaashi soo jireen ay leeyihiin. doorashada Faransiiska oo shalay loo dareeray wareegeedii labaad waxaa mar kale guul u soo hoyatay madaxweyne Emmanuel Macron kadib markii uu ka adkaaday haweeneyda xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen la yiraahdo. Macron waxa uu jeediyay khudbadiisii guusha kadib markii Le Pen ay qiratay in laga adkaaday, waxaana uu ammaanay shacabka dalkiisa isaga oo bogaadiyey 5 sano ee dheeriga ah ee loo doortay inuu hogaamiyo guud ahaan dalkaasi Faransiiska. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa. qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.